السلام الله عليكم ميل كستو دنيدا كجوجتان magacaygu waa Idris Xasan Maxamed page-kayga daawanaysa waa Idris Qaso page official sidoo kale waxaad kala socon kartaa kanaalkayga YouTube-ka Idris Qaso channel official sidoo kale waxaad kala socon kartaa TikTok iyo qaybtan kule Instagram-ka muuqaalka maanta aan idin wado waa muuqaal ku saabsan qiso ka dhacday qurbaha qisooyinkan oo kale si aan u soo badiyo fadlan igu dhiirigeli oo page-kayga like sar sidoo kalena qaybta YouTube-ka subscribe dhe gambaleelkana furo si ay kaaga caawiso muuqaaladan soo geliyo mahadsanid qisadani waxay ku bilaabmaysaa sida tan ninkan dhalinyarada ah waxa uu gadi jiray dukaan gabadhana dukaanka ayay ka adeegan jirtay mar kastaba ninkani markasta wuxuu muujin jiray gabadhan wanaag iyo furfurnaan iyo hadallo naxariis badan mar kastaba iyaduna runtii aad ayay ugu qanacday ninkan hadalladiisa iyo waxyaabaha uu mar kastaba uu ku yiraahdo kadib ayay iska soo baxaysaa waxayna soo ag istaagaysaa meel basaska laga raaco kadib ayuu u imaanayaa uu ku leeyahay maxaa meesha ku fadhiisiyay markaasay dhahday xaafadda ayaan u socdaa oo bas ayaan qaadanayaa markaasuu ku dhahay may bas qaadan ee aniga ayaa gaari wata ee namari aan ku qaaday runtii gabadhan ninkan dhalinyaradii aad ayuu u jiitay iyo jacayl aan la soo koobi karin ayuu runtii ka hantay gabadhii way soo raacday oo waxay la soo raacday gaariga si uu geeyo xaafadeeda muddo intii ay sii socdeen ay dhexda ku sheekaysteen waxayna ku ballameen inay hodheel iskugu yimaadeen markii hodheelkii iskugu yimaadeen ay wax wada cuneen ayay sheeko dhex martay sheekadaasoo ah in uu rabo aan idhaahdo ninku inay mustaqbal wadaagaan gabadhan iyadoo xishoonaysa ayay dhahday waxba kama qabo waanan ogolahay guurkaaga ninkan dhalinyaradana kalsooni aad u sii weyn ayuu sii geliyaa oo mararka qaarkood xataa laamida ayay soo wada maraan marka uu shaqada soo dhammaysto oo ay meel ku ballamaan iyada iyo isagu kadibna meelahaas ay soo marmaraan muddo kadib markii uu arrinka socday heer waxa ay gaadheen labadoodii sida ay ku go'aansadeen inay isguursadaan oo arooskoogii ayaa dhacay si farxadlana way u gurgaleen isaga iyo iyadoo ku faraxsan ninkan dhowrsanaanta badan leh iyo dulqaadka badan leh waxayna ku heshiiyeen maadaama ay isguursanayaan inanku waxa uu dhahay habeenkii guurka maadaama aan ahay hadda nin shaqaale ah waxa aan rabaa in aan wax tacbado ma rabo inaad uur iyo wax qaadid ee waxaan rabaa in aan isxakamayno ilaa iyo inta aan ka gaadhayo horumarkayga wayna ku raacday oo waxay dhahday waa wax wanaagsan laakiin qadarku waa xagga alle gabadhii uur ayaa ku soo baxay dhakhtarkuna wuxuu u sheegay in ay uur leedahay runtii arrinkaasi fajac aan la qaadan karin ayuu ku noqday gabadha maadaama ay ka wada hadleen ninka imika guursaday inayna wax uura u qaadin inta uu dantiisa ka gaadhayo kadib ayuu soo kaxaynayaa waxa uu leeyahay maanta xaggee tagtay marka ayay dhahday maanta waxa aan tegay dhakhtar oo waan yar xanuunsanayay kadib ayay u sheegaysaa in ay uur leedahay oo dhowaan uu aabbo noqon rabo hadalkan waxa islahayd wuu ku farxi doonaa maadaama kadib xanaaq ayuu bilaabayaa oo wuxuu dhahay miyaanan ku heshin inaanan uur iyo waxaas aanan xilligan ka wada hadal miyaanan kugu dhihin ii dulqaado ilaa iyo inta aan heer ka gaadhayo runtii gabadhii way yaabtay sida uu la hadlay iyo hadallada ka soo baxay maadaama uu islahayd wuu ku farxi doonaa uurkan maadaama ilmihiisii ay caloosha ku wado arrinkaasi markii uu dhacay kadib aabbihii kuma soo noqon gabadhiina waxay dhashay gabadhan ahnaada u wada jeedno gabadhii marka ay dhasho gabadhii way soo korinaysaa wayna soo barbaaranaysaa ilaa heer jaamacadeed ay gaadhsiinaysa gabadhiina waxay noqonaysaa gabadh heer sare nolosha ka gaadha muddo 20 sano kadib iskeena oo waayeel ah oo laamida dhinaciisa fadhiya goob barafa oo jawgana uu aad u qabow yahay kadib ayay weydiinaysaa waxa meesha dhigay kadib ayuu ku leeyahay cid malihi oo maciin malihi meeshan ayaa hooy ah aad u badanba meeshan ayaan iskaga daryeelaysanahay oo aan iska fadhiyaa cidii gargaartana runtii hadalladii odaygu yidhi ayaa gabadha naxariis iyo ku beeray wanaag kadib ayay ku dhahday inamari aniga ayaa dadkaaga maanta wixii ka dambeeya ee inamari gurigayga ayaan ku geynayaa
gabadhii waxa ay ka naxday odaygan oo dhowr mar ay timid meesha ay ku aragtay isagoo meesha iska fadhiya. kadib markii ay weydiisana waxay ogaatay inuuna cid lahayn. kadib ayay ku leedahay, hadda ka waran noloshaada, soo hadda caadi maaha. gurigan ayaad iguna noolaan doontaa ilaa cimrigaaga ka dhiban oo dhibaato dambe ma arki doontid. kadib ayuu leeyahay, aad baad u mahadsan tahay gabadhaydii, qabow badan ayaa meesha igu dilay oo cid ii soo gurmata ama cid garab gasha waan waayey. aad baanad u mahadsan tahay gabadhaydii, weligayna ma arag qof sidaa u naxariis badan oo sidaa ila dhaqma. runtii odaygii iyo gabadhii sheekaysi ayaa dhex maraya labadooda. kadib ayay uga sheekaynaysaa inuu aabbaheed ka tegay iyada oo uur leh oo hooyadeed uu ku nacay. markay istuytoydaan ama iswaraystaan ayaa wuxuu ogaanayaa gabadhani in ay tahay gabadha uu isagu dhalay. runtii aad ayuu uga murugoonayaa arrinkii uu ku sameeyey hooyadeed. waxa uuna ka qoomameynayaa hooyadeed meeshii uu kaga tegay cidlada ahayd iyo hadda gabadhiisii oo daryeeshay oo ka soo qaaday meeshii aan ogeyn ee barafka miidhan ahayd. runtii odaygii murugiye ciil ayaa ku dhammaaday oo waxa uu ogaaday inuu khalad sameeyey. waxa uuna yaqiinsaday inuu xaaskiisii dembi aad u weyn uu ka galay. waayo hore waxaa loo yidhi nabsiga aad gashaa mar unbuu kaa soo baxaa. qisadan intaa ayaanu ku soo afmeeri doonaa. fadlan qisadani hadday tahay mid dareenkaaga taabatay, fadlan sheer leh oo asxaabtaada la wadaag. mahadsanid.